iyadoo saacadihii u dambeeyay magaalada Muqdisho ay ka da'ayeen roobab mahiigaan ah ayaa wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay barakacyaasha ku sugan magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac, gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Guuto Sulub Axmed Firin ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah dadkii uu saameeyay roobabkii daadka watay ee shalay ka da'ayay caasimadda. Roobabkaasi oo geystay khasaare isugu jirta dhimasho iyo burbur hantiyadeed. dhammaan mas'uuliyiinta ayaa qoysaska ugu tacsiyadeeyay waxyeelada ka soo gaartay roobka. Sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa kormeeray qaar ka mid ah wadooyinka uu roobka biyo dhigay si xal waara loogu helo goobaha ay fariistaan biyaha isla markaana loo maareeyo. Mas'uuliyiinta ayaa dadka ay saameeyeen roobabka gaarsiiyay raashin iyo baco ay ka galaan roobabka. gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka Mudane Maxamuud Macalin ayaa sheegay inay gurmad degdeg ah soo gaarsiin doonaan dadka uu saameeyay roobabka. waxaan Mudane Ra'iisul Wasaare anaga amarkii aad caawa markii dib ku dhacay aad bixisay aan qaadanayno waxaan halkaan ku haynaa oo keenay raashin kuwa bisil iyo kuwa aan bislayn. waxaan keenay dhar waxaan keenay oo dadku ay maadaama qabow iyo roob uu jiro dharna waa u keenay cuntadii waa u keenay timirtii waa u keenay. waxaan rabnaa gudoomiyaha caanihi waa u keenay gudoomiyaha iyo gudoomiyihiisa degmada iyo dhibkii dhacay ilaahay yasiro laakiin anagu wixii allaale wixii aadna amartay oo degdeg aan ugu amartay hawshii waa ka howlgalnay waana keen. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa ka warbixiyay saameynta roobka uu reebay iyo khasaaraha ka dhashay. roobku wuxuu waxyeeleeyay meelo badan ay ka mid tahay meesha la yiraahdo daala jidka sodonka meesha la dhigi jiray baar ubax iyo balaagsi inta u dhaxayso wuxuu waxyeeleeyay warti la dhigi jiray xareed wuxuu waxyeeleeyay siigaali wuxuu waxyeeleeyay xamar weyne wuxuu waxyeeleeyay danwadaagta jidka buulxuubey wuxuu waxyeeleeyay iskuul buluusiya meelo badan ayuu ka da'ay iyo meelo kale oo aanan hadda maarata xasuusteeda ka maqan dabcan oo fagax oo waliba aan ogsoonahay culays badan inuu ka jiriyo oo aan habeen dhaweed aan tegey. Mudane Ra'iisul Wasaare runtii gurmad ayaa loo fidiyey dadkii biyihii meelihii ay qabteen oo ama ay fadhiisteen in badan oo ka mid ah booyado ayaan u dirnay ilaa iyo hadda dadaalku waa socoyaa hawshii waa lagu jiraa mana ka seexan doono. haddana caawa halkan aan joogno ilaa dadkii qaajoonay aan u nimid ilaa annagoo wax ku hubinno oo wax siinno ayagoo wax cuneen oo qof kasta ay dareemayso inay dheragtay inaan ka dhaqaaqna ma rabno haddii ilaa yidhaahdo adiguna waad nala joogi doontiin adiga golaha wasiiradaba oo dadka markaa raashin ku hubsatiin ayaan wada bixi doonaa. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusiimaha Ra'iisul Wasaaraha Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa ka tacsiyadeeyay dadkii ku nafwaayay roobabka isagoona ballan qaaday in xukuumadda dan qaran ay wax badan ka qaban doonto dhismaha wadooyinka. awalan horta ilaahay ha u naxariisto dadka ku dhintay ilaa hadda 4-5 qof gaadhaya ee gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalka roobabka ay si weyn ugu da'een oon huba inay waxyeelada kale soo gaadhayso nimcada ilaahay uu inagu manaystay ee roobka ah dhibteedana way leedahay markay biyuhu ay daad isu bedelaan oo tan bataan. dalkeena 4tii gu ee u dambeysay roob badani ma diin 5tii gu u dambeysay abaar iyo ma arkaysaa macaluul iyo duruufo adag bay dadku ku sugnaayeen. ilaahay roob laxaad leh ayuu inagu galladay oo dalka Soomaaliyeed cirif ilaa cirif ama geeyiga ay Soomaalidu degtaba ka wada daay. waanu bogaadinaynaa daraalka jira wixii kale hadhayna annagoo wada jirna baanu emergency response ka shaqaynaynaa insha Allah ta'ala. laakiin sanadaha soo socda dawladnimo xasilan oo aan wixii reaction aanu ahayn iyo mataqaana ka daba tage ka sii feejigan oo qorshayaal sii dejisatay baynu ahaan doonaa. guul baan u rajaynaynaa dhalinyarada askartaanu bogaadinaynaa hawlwadanaanu bogaadinaynaa hablahaanu bogaadinaynaa hadda cuntada karinaya sidaasaanu u dul taagnaanaynaa dadka intii baahanba intii tamarana aan u dalaalaynaa ganacsatada iyo booyadaha iyo baaci mushtariga dadkooda taageerayana aad baan u bogaadinaynaa. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.